بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحريسي نبتقل يكركي نهاها تو مد الصوماليد ميلا جوگتان بردمانتين بآد باندين سلامية وتحنيه تاريخ دي جيسي صوماليات هرومريه صوماليات مقعة إيه منفعة إيه شرفته ومد أسمي شاء محمد سياد بره تحنيه نو سعودية تاريخ دي سها أنا سلاي هاي مانتا أتسوق بقبيسين بل سواحن كسوق بقبيني أمرك هورين تانا بالعابين تاريخ دي سا انتي كان النايد وحي عن ككاري كاري ما قاري كروحي نكان السميي لكن يمد كوادي وشدديد وحن باي هايدون سديد دوري لاتن سنة بو أيو هرتيد بو غيريو دي الله نحرستو لكن دوري لاتن كان سنة بو حن مغليا maagistiisa iyo caydiisa iyo beenka sheegidiisa qof dhintay oo aan isdifaacaynin xaq bay igu noqotay inaan difaaco waayo isagu wuu dhintay maanta isma difaaci karayo wax aanu samaynin maalin walba inaan dhowr iyo 20 sannadood aynu dhageysanaana yani diinta islaamka iyo dareenka dadnimada iyo damiirka ayaa diidaya jirka diidaya waxaad og tahay inaanu samaynin inaad maalin walba maqasho oo ummad waliba mas'uuliyiin sheeganaysa aad ka maqasho iyagoo been ka sheegaya ma kari karo ma sii kari waayo anigu horta kulli baan sii kari waayo qof bila aadan wuxuu sameeyeen in la dafiro waliba cay looga dhigo oo waxaanu sameeyeen loogu bedelana waa waxaan bila aadanimada iyo diinteenaba ka baxsan hadii ugu noqonaya su'aalaha la isoo weydiiyay waxa la yiri waxa rag iyo dumarku way siman yihiin buu yiri marka sulus wa sumun yani inankii inantu macnaheedu waxa way siman yihiin waxa way inanka iyo inantu waa dhaxalka iyo magta labaduba waa isku mid dhaxalkana waa isku mid ayuu yiri waa taa kelmadda laga daba socdaa ee uu yiri bal waxaan maanta idin cadeynayna inay waxba ka jirin waxaana idin soo baxaysaa maadaama dhaxalkii iyo magtii sinaa aanay u sinayn diinta inay been ahayd inuu yiri way simayeen halkaas ay idin ka soo baxayso idin cadeynaysaa maxaan ku cadeynayaa ilaa maalintii uu ka baxay dalka siyaad barre maxkabadeenna wasaaradda diinta iyo awqaafta maxkabadda marka la isla tago ee dhaxalka la isku qabsado sidii diintu jiriba loogu qaybinay inankii iyo inantii suluskii iyo sumunkii iyo gabadhii uu ka tagay ninkuu ka dhintay iyo bahahu ka kala dhintay mar kasta oo maxkabadii la isla tago qofkii caqli lahaa iyo ka ilaahay garanayowba waad garanaysaana waad ogtay ilaa maalintuu tagayay maxkabadeennu waxay xukumayeen dhaxalkii iyo magtii oo intii inan kulaha kitaabkii lagu xukumayay oo lagu dhaxlay maxaa halka idin ka soo baxay marxaatigeeda idin cadeynaysa inaanu kelmadan oranin una jeedin wadaadada haday khalad ku dhinteen iyo haddii cid kale ay sabotage u samaysay idinkaa ka garniqi doona maadaama diinta wasaaradii dawladdiisa ka tirsanayd ee wasaaradii diintu dadka ugu qaybinaysay sidii diintu tiri oo inankana intiisii u siinaysay gabadha laga dhintayna inteedii u siinaysay inantana inteedii u siinaysay weydiiya raggii markhaatiyaashii maxkamadaha ka shaqayn jiray maanta way joogaane waa inay waxa ahayd laga mamnuucadee oo la yidhaha inankii inantu dhaxalka isku mid bay helayaan bal soo sheega goorta dhaxal isku mida inan iyo inani heleen halkaasaad ku garanaysaa beenta laga sheegay beenta cad qolada kilalka shanaad waxay dhahaan been madow bay yidhahdaan beenta madow ee laga sheegay taasaa idin markhaati kacaysa inuu mamnuucaabay ahayd oo yidhaha isku mid ha laga dhigo taasaan markhaatigeedii idinka weydiinaya oo aan idiin sheegaya waa ajar u socda in been laga sheego dadka beenta ka sheegaya ajar baa aakhire ugu socda laakiin wuxuu ma cadeynaya maanta in dadka la fahamsiyo wax daadiisii halkii ugu hooseysay baan ka soo qaaday laakiin berigaa lama garan jiray waqtiga la dhashay balse 9 sano uga kac oo ilaa uun ku darso dhowr mid ku darso waayo hubantiinis waqti hubaala maynu garan laakiin inuu yaraa oo uun intaas uun uu account daadiisa ugu yarayd ayaan ka soo qaadnay labadaa mid waa la soo weydiiyey waxa la soo weydiiyey bangigii IMF-ta iyo ayaa la soo weydiiyay dhibaatada ka dhacday iyo lacagteena maxaa ku dhacay lacagteena wax ku dhacay markaynu World Bank isqabsanay oo isku qabsanay lacag interest bixiya lacag aan laynoo soo dirin bay dhahay interestkeeda bixiya ee uu diiday ayaa laynaga xiray Central Bank lacagta adkeyd exchange-kii ayaa laynaga xiray New York boy martaa lacagta dollarku ee lagu kala weerato xoolaha lagu soo kala iibsaday waxa lagu soo kala iibsaday dabadna waxa dhacday haar karaasi baynu wax lacag baynu weyn dabadna Djibouti ba asxaan inoo sameeyay soo ka dalbaday inay noo furaan bangi aynu exchange-ka
central bank iyagu wakiil nooga noqdaan taasoo bangiga jabuutina loo furay taasaan idinka qanciyey su-aalihii saddexaasaa ugu badnaa wax laysoo weydiiyey fale saddexaa su-aalood waxaan u soo daadegayaa waxqabadkii waqooyi maanta rag wasiire ka ah somalilan iyo agaasimayaal ka ah iyo madax ka ah ayaan maanta idin tusayaa hadda siyaad bare wuxuu u sameeyey 1974 abaartii baa dhacday la odhan jiray dabadheer dadka waxaa laga gurayey beer meesha la yidhaahdo caynaba waxaa laga gurayey meesha la yidhaahdo oog agteeda dhulkaasoo dhan baa laga gurayay ilaa laascaanood baa dadka laga guraya ugu badan markii dambe isregister gareeyeen oo qaar yidhaahdeen annaguna dadkii xoolaha naga baxay baa noo reer Hargeysa loo reer Burcaal oo xafiiska intay registrationka yimaadaan xamar looga daba qaadayo laga daba geenayo maxaa dhacay abaar baa dhacday waxa dhacay xanuun daacun wax aan filaya inuu yahay ayaa dhacay waayo qofku intuu shubmo oo laba cisho shubmo oo fuuq baxo ayuu dhimanayay carruurta iyagu laba cisho 24 saacadood kuma qaadanayeen markay shubanka bilaabaan ayay fuuq baxayeen oo energy ka dhamaanayay dhimanayeen ba 65,000 dad ku dhow ayaa la qaaday oo ka qaaday waqooyi oo badbaadiyey muxuu sameeyey laba wiil gudahood ayuu markuu arkay dadkii in xanuun u raacay abaarta biyo iyaba loo geynayay waa la waraabinayay laakiin markuu arkay inuu xanuun dhacay oo aanay dadkani ka sarfayfeen muxuu sameeyey qeeladhaan buu sameeyey carab iyo ruushkii inuu soo gurmado diyaaradaha la keenay shabeelle la yidhaahdo waaweyn yaa laba wiil gudahood lagu keenay wuxuu sameeyey isaga laftigiisa beer yimi oo dhulkii dadka laga gurayay maxamed siyaad barre waxa amray waxa laale wixii ciidan ahaa meel kastuu yahayba daraawiishtii mooyaane ayuu amray ciidankii baa amar siiyey barasaabadii iyo wasiiradii iyo wasiir ku-xigeenadii iyo dhiisayashii amar buu siiyey inay guraan iyagu kow dadka qaxootiga guraya inay noqdaan ruushkiina amar buu ku dejiyey wuxuu halay soo diray diyaaradaha ugu waaweyn tiraday hayn garan maayo waxa la sameeyay dadka markuu intaas sameeyey ayaa raalli ahaada markuu intaas sameeyey wuxuu diray tujuuma iyo sablaale iyo meel kale baashii la yiraahdo saddexdaas oo ciidamadeennii iyo ummadii shaqaalihii iyo madaxba uu dirayba wasaaradii beeraha oo amar siiyey oo hogaaminaysa iyo waxiiba uu diray wuxuu yiri dhulka la dajinayo waa in taandhooyinkii degdeg loogu sameeyo xaggan baa laga register gareynaya dadka tirada inta yihiin iyo inta family yihiin ba xaggan laga sii register gareynaya intaan la qaadin ayaa registration lagu sameynaya waxa lala soo gaaray dawooyin baa lala soo gaaray energy-ga soo celinaya oo caloosha u joojinaya dadka oo ay ku sii noolaan karayaan baa la soo gaarsiiyey musaasadahan yar carruurta la siiyo markii noogu horreysay dadka lagu siinayay dawada emergency-ga ee joojinaysa jirkooda nafaqa siinaysay wuxuu yiri waa in reer walba gurigii loo sii dhisay imaka taambuug waa in loo sii dhiso waa in loo xaadho dhulkii beeraha loo xaadho iskuuladii iyo dhakhtarradiina waa in degdeg loogu dhiso taambuugyo emergency-a loogu sii dhisay intaan la gaadhin in loo dhiso guryo caadi ah baladeegda 65,000 laba wiil gudahood ayaa guryihii loogu dhisay oo reer family walba loo diyaar gareeyay dhulkii ay beeranayeen oo ay jiqa oo webiyada ah ayaa cagafyadii la geliyay boqolaal cagaf family walba in baa loo dayray waxa la siiyay in qiyaasa qaarna shashana waa la isugu daray qaarna family walba waa loo dayray qaarna waa la isugu geegeeyay iskuulkiina waa la furay dhakhtarkiina waa loo furay ugu daweynayo dadka iyo neersi iyo dhakhtarradii ku diyaarabay dadka la dejinayay muxuu sameeyey halkaana carruurta isaga ku siday laba carruur intan la leekaado midna halka ku siday midna halka sawirkiisa eega misaasadaana midba ku siinayay midna taasu ku siinayay dad isaga wax ka gurayay waa ninkii badbaadiyay rag maanta wasiir ka Soomaaliland ayaa ku jiray oo aan isleeyo waliba waxa kamid ahaayeen kuwa yarar misaasada shaqsiinaya siyaad bare kamid ahaayeen kuwa maanta caaya saasu ku badbaadiyay laba week waa ku dejiyay dhulka iskuuladii kuwa ka soo baxay maanta waa kuwa Soomaaliland ka madaxda iskuulada ka soo wada baxay aabayaashoodna ee da'dahaana baasaboorada loo wada fasaxay markii carabta la furay ee la yiri nuur bidaar oo si baasaboorada loo fasaxay iyaga priority hala siiyo oo kuwa wada dhoofay ee carabta wada galay waa ragii odayaasha hay kuwa dhalay caruuraha qaxootiga la geeyena waxa la yiri beeraha caruurta iyo hasii fashaan inamadu dad reerku hasii fasha beeraha markii beerihii loo salaxay iyagina way dhoofeen boqolkii 75 baa dhoofa carabta ka soo shaqaystay oo guriga waqooyi dabeetana ka soo dhistay oo dabeetana ka soo baxay
dhulkii iskaga yimi beerahoodii iyo hantidoodii iskaga yimi inta ugu badanna way ku hadhay rag xamarid la joogo madax ka abaa ku jiray way joogaan magac dhabi maayo taasina waa tawa abaal la'aan maanta abaar yar baa ku dhacday carabta iyaba u soo gurmaday turkiya waxaa u keenay inta bakhaara lagu xaraysay baa tijaar laga iibiyey 10 booyadood lama siinin dadkii iska daa cunto iyo dawo loo keeno 10 booyadood gobolka dhan ee sool iyo togdheer 10 booyadood oo biyo looma geenin waxiiba waa tii lagu iibiyey guddida abaaraha waxa la yidhahdaa guddida barkaliya wax ka qabsadeen yani raashinkii la keenayay toos baa loo iibinayay oo lagu qaybsanayay oo kuwa sameeyey isna taasi uu sameeyey ragga maanta caaya iyo dhulka laga caayo waqooyi siyaad barra laga caayo waa taa abaalkiisu taasi ku dambaysa abaalkiisu waxaan leeyahay ilaahay baa idinka jisaysiinaya waxaan u soo noqonayaa markaan taa ka baxo wax qabadkiisii ayaan doonaya maanta inaan soo gabagabeeyo markaan gargaaradii iyo siduu dadka u galay ee u badbaadiyey 65 kuna markaan ka baxo maanta siyaad barisma difaac karayo u dhintay inaynu difaacnaaba xaq u leenahay wixii uu sameeyay wanaag ahaa inaynu ku difaacno ayuu xaq inoogu leeyahay isagu uu dhinto isma difaaci karayo waxaan soo noqonayaa wadooyinkii wadadii ka soo baxaysa feerfeer ama beledweynaagtiisa ee ilaa imanaysay burco waa imisa 900 iyo something 960 Soomaaliya meelaha waxa la leeyahay waxa wada aragteen isaga sameeyay wadadii yarayd ee gawaadhidu maalin walba nagula qalimi jirtay ee haddaan nahay reer waqooyi aanu ku madhanay ee xoolaha marka berbere loo qaadayo lagu madhay ee berbere dawga isaga sameeyay waa tii tay cunaan maanta ee aan lagu darin waxba wax laga sii dhimo mooyaan taa isaga noo sameeyay maalin walba gaari baa nagula qalimi jiray kalka xoolasi iyo dad sida dekada berbere isaga ballaadhiye Mareykan ugu yeeray condition buu kaga dhigay madaarka berberana isaga sameeyay ee maanta la xaraashay ee laga kireeyay carab dekada berbere ee 100% maanta carab la siiyay shaqaale masaakiinta aan laga dareeriyay ee Srilankadu ka shaqayso badhka Mareykanka isaga dhigay inta kalena isaga dayactiray waxa wiishii aad aragtay isaga keenay bakhaarada isaga dhisay inta ugu badan 2 bakhaaro kaliya ka dhisna haamaha baalroolka maanta ee ay ka kireeyeen shirkadaha ee ay lacagta ka qaataan 3 mooyaane isaga keenay intii kale waa intii ruush ku dhisay yar waliba mooyaan ku yaryara ee 3 mooyaan iyo dawladda hore ayuu ugu yimid isaga dhisay inta ay wax ka soo galaanba maanta isaga dhisay abaalkiisa wax noqday ila caayo oo been laga sheego ee abaalkiisa noqday inta maanta dekad maxay tahay warshada sibirka ee dhowrka kun ay ka shaqayn jirtay ee ilaa 10 kun ee family ay ka heli jirtay biilka ka heli jirtay isaga sameeyay maxay maanta sameeyaan kalba afar taajir baa isku haystaa sibirkii waa ka halkaas ka yaala sibirkii warshadiina waa taa ku hagaajisan kari waay maanta isaguna sanad buu ku hirgeliyay waayahay waxaan soo noqonayaa markaan wadooyin oo dhan wada kasta meel kastay tahay ee riboodadii baan soo noqonayaa ka berbere isaga dhisay baydhabo balidogle ciidamadu ka degayeen Kismaayo wadooyinkii koonfur oo dhan isaga dhisay intii yare Talyaaniga uu dhisay wadooyinka la oran jiray mooyaan isaga oo la dhisay xamar markuu yimid sida weekayd xamar maanta heesbaan aad u jeclaaday ma qaadi karayo laakiin waa jecelahay heesaa wadaniga inaan qaadaa waan jecelahay waayo laabteeda ka guuxayaan marka waan ku higooda markaan heesa wadaniga maqlo xamar siday ahayd iyo sidii ugu yimi raggii joogayo markhaatiga iga furaa maalintuu ka tegay siday ahayd iyo maalintuu yimi siday ahayd xamar looda ku xareysnayd yani siday ahayd xamar sarta muuqa dheer leh soo maahan heesti ma meleelicdeen weli mana jiray dhacooteen dalka sidoo galay waa ogeedeen maraayada uga dhigay maalintuu ka tegayay xamar 100 guri kamay dumin 100 guri kamay dumin maalintuu xamar ka tegayay 6 bilood markuu ka maqnaana waa ogeedeen xabaalay noqotay ghost city bay noqotay ghost city ayay noqotay waxa lagu eedeynayaa waa ilayhin isaga waxaan ka dambeeyay oo muxuu kaga dambeeyay dal iyo dadba way inoo dhisay tacliin bay inoo dhisay iskuulada dhakhtaradii jaamacadihii wax walba inoo dhisay aqoon bay inoo kordhiyay waxaanu inagula dardaarmay dardaarankiisina horaan soo sheegay bal waxa lagu eedeynaya sheega wuxuu inaga hayay daaqoodiyo ayuu inaga hayay oo ku dagaalamaya daaqoodiyo inuu inaga hayo kuwa maanta sidaa inoo galay inaga hayay miyaa eedayn kartaa muxuu isaga tagi waayo uga carari waayo nooga carari waayo miyaa odhan kartaan waa ninkii idin difaacayay idinka difaacayay daaqoodyadaas idinka difaacayay maanta sidaa idin galay
qaar baana miskaga tago oo muxuu ka taga uu ku dhimanayay dadku iyo dalka ayuu u doodayay ninkani oo u dirirayay muxuu kaaga taga ayuu kaaga taga kuwaasuu kaaga taga wuu ka baxay oo iskaga tegey iyadoon waxba ka dhicin ayuu iskaga dhaqaaqay maxaa dhacay وين مير كنا قصة نقطة حرينتي أفريقيا صدق دولة بحرية أفريقيا عربية دين مسلم كعالم الإسلام بو أيو ضاضي أو دقالة وحن يقودين شري عرب أفريقيا إنك عيدا كود الرأي حسوستا رجي دولة أفريقيا حرية إيه شبهها والسمية يقوده يقوى ويناء دونك كجحوك روناضي صاد أفريقيا أنت هايستي إيه أنت كلام قويس وهايستي بكجحوك روناضي حسوستا الدولة دي زيمبابوي كبلابا رجع حرية وين التان لبدي بقى الله يرحمه عبد القادر كوسار كورنيل عبد القادر كوساري أو الرجل ودري نكي لو نشري إنا استعمال كورنيل إنا استعمال رجل ودري بهان في أفريقيا حرية ما ترك تالويك كله أفريقيا وحيو تقانا جيسي هيرو جي أفريقيا أيوة أفريقيا وتقانا إنا قلنا وحنا نقانا الدلابة نقانا يدمية عربتنا وحيو تقانا جيسي سوريا يا فلسطين ودقالمay يا weedee sidoo ugu dagaalamay ee adduunka fahamsiiyay waxa meesha ka jira fahamsiiyay baa waa ogeedeen Masar wuxuu ku caawinayay inaga caawin jiray Carab kalluun baynu u diri jiray iyo raashin baynu Carab u diri jiray kuween maanta dawarsanayno yaa ina gaarsiin halka kuween maanta dawarsanayso ee Carbeed isaga u dirayo quudinayay dagaalkii 73 isaga quudinaya oo kula dagaalamay dagaal kalluun u radaya Suuriya Masar Lebanon Falastiin Afrika sharafteena halka gaarsiiyay baha taalooyin bani iyaguna u dhisaan Afrika iyo Carabi geesigii bay yiraahdaan Carab iyo caalam islaam idinkuna cayba ayaa ugu jawaabtaan kuwa misaasadaha siinayay ee ka badbaadiyay shubanka iyo nafaqa darrada ka badbaadiyay baataay kuwa wax soo baray oo aynu garanayno wax soo baray ee geela raaci lahaa shaqa may jirin shaqo kuwa iskuulada ka soo baxay maanta Soomaaliland iyo jooga geelay raaci lahaa dib u raaci lahaa shaqa may jirin markay iskuul ka soo baxaan xaga qaban lahaa ama Carabi wax maalash tagi lahaa yaa magacan u sameeyay saraakiisha ka dhigay koorsada u diray dibadaha wala diray ee xidiga ku wada tolay abaalkiisa darajada ay magacyada ku sameeyay abaalkiisa waxa uga dhigan laad baanu la dhici jiray waanu waxaan ku sameyn jiray ayaa baa uga dhigan waxaan u soo noqonayaa markaan xoreynta Afrika iyo Carab ka imaado waxa laaliye wixii anigu aan soo koobi karayn maanta ee airboodadii aan dib ugu soo noqday waxaan maanta doonayay inaan ku gabagabeeyo nimayahow safaaradii dibadaha intii uu iibiyay safaarad ma xasuusantihiin intuu safaarad iibiyey ee dibadaha inooga iibiyey ee maantana meel ay ku kaburiyeen haddaan ilaahay nimankaa cusub ee dawladda aanu ku simin safaaradaheennii guryihii aynu hay'adka u lahayn qaar baa iibiyeyba qaarna dawladihii ay la yaaleen baa ka qabtay oo ka gaadhay qaarna deyn laynoogu lahaabaa mala loo qaatay yani dabadiyo gudaba baasaboorka ugu qaalisan buu ahaa baasaboorka ugu qaalisan ayuu baasaboorkana ahaa waqtigii Siyaad Barre Allahu naxariiso Maxamed Siyaad Barre baasaboorka aan la heli karin fiisaha ugu qaalisan buu ahaa gaaladu wiigag bay wareegi jireen oo imtixaan laga qaadi jiray maxaad doonaysaa maxaad dalka ay ka rabtaan cadceedda ayuu damcay inuu ka iibiyo biijka liida iyo berbereeyay bay ku raaxaysanayeen markaasuu waa in lacag laga qaado cashuur laga qaado maxaad doonaysaan ayaa fiise Ingiriisi u wareegi jireen iyo Mareykan iyo inay fiise soo helaan fiisa lagu soo gali jiray Soomaaliya halka maanta gaadheen in idinka la idinka mamnuuca adduunyada oo adduunyada leeydiin diido fiisa leeydiin diido adduunyada oo ka noqotaan fayris ka noqotaan adduunku iska ilaaliya xanuuna ayaa maanta gaadheen kaasoo ahaa Siyaad Barre sharafta iyo awoodda inoo sameeyay baa awood Ilaahay baa leh waa ka ku wacdi furtay waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed waxa idin hayaa wax kale ma aha waa cuqubadii aad gasheen ee ka gasheen dawladdii Siyaad Barre ee ka raacdeen cadawga Siyaad Barre waxa hayay cadow dabadeed baa hayay mid diimeed baa hayay oo la dagaal galay waxa hayay cadow kale oo dhuleed baa hayay
mid inala jaaraya mid dabadeedba mid dhaqaale oo adduunka fahamsiiyey oo adduunka dareensiiyey siday u jaqayeen adduunyada u cunayeen uu dareensiiyey ayaa ina hayay ninka la dagaalamayay iyadoo adduunyada oo dhan la dagaalamayso ayaa waxa u soo raacay loo adeegsaday kuwii iyaga difaacayay ee xaqooda iyo xuquuqdooda iyo xornimadooda iyo dadnimadooda iyo horumarkooda u dagaalamayay ayaa iyagii loo adeegsaday ilaa maalintii ay xumaadeen yaa la dagaalamay dagaal buu ku jiray waxa la xisaabiyaa dagaalka intuu ku jiray ee dibad iyo gudaba lagala dagaalamayay ee meel walba laga soo xidhay ayaa la xisaabiyaa bal waxa xisaabsan wixii 84 ka horeeyay 83 ka horeeyay xisaabiya ama 80 ka horeeyay xisaabiya 10 sanadood bal xisaabiya intii ka dambeysay in xabad dagaal ku jira baa mid guda iyo mid dabada dagaal ku jira baa dadka xisaabiya maanta ay yiraahdaa dagaal buu nalaayeeyo waxaan idinkana idinku gabagabeenayaa inagu deegaamadeennu SNM bay ahaayeen deegaamada bariguna waxaan SSDF ayaa ahaayeen bal inta aynaan jabhad ku dhawaaqina rag ninkii la odhan jiray markay inqilaabka sameeyeen Ciro iyo Cabdillaahi Yuusuf markay inqilaabka sameeyeen raggii saraakiisha ahaa inqilaabka waxa ku soo doonayeen dawladda ka qabsadeen isagana qabtaan oo way lahaayeen ninkan wax iska celiyeen waa kee istifaaceen qarankiisa difaaceen madaxda kee waa kuma aan isweydiina maanta doorashadii bay ku shubanayaan iska daa kii doorashada iyo ummadda farteeda ku soo baxay baa ku shubanaya oo xoog ugu shubanayo military u isticmaalaya waa kii doorashada lahaa dimuqraadiyad baanay balse nin military iyo ku qabsaday hoob ku qabsaday xoog ku qabsaday markaad xoog ula timaado waxaad kaga qaadaa soo xoog maaha waa taadogad wixii dhacay raggii markaa saraakiisha ahaa uu ahmooday iyaguna inay dalka markooda xukumaan oo Cabdillaahi Yuusuf ka mid ahaa waa ku dibadda u yaacay maxaa dhacay miyaa garanaysa wax kale oo la idinka dilay wax inqilaabo isagoo kursigiisa ku duulay mooyaane cid kale qof kale la dilayo oo shicib wax loo sheeganayo oo qolo loogu sheeganayo oo qabiil loogu sheeganayo oo deegaan loogu sheeganayo ilaa nimankii ay yasi jirteen ee oran jirteen waanu yasaynaa ee farsamo yaqaaniinteena injineerinteena ahaa ee gabooye iyaga dalka haystay ninka oran karay muu jirin kelmadii xumaa isticmaali jirteen wallahi inaan afka la soo mari karayn xarig buu ahaa inaan baa weydiiyay ku wareer maxaad ninkii aad wax uga hadli weydeen aynu ka hadalama ku TV-ga program qaano inaan gooyaha mutacalin ah waxaan leeyahay aqoonyahana wuxuu ugu wariye igu yiri adduunka intii aanu jiray ninkii kale xaq iyo xuquuq noo sameeyay ee ummadda nala sameeyay isagoo ahaa haddaan anagu hadlay wili maanta waa la dilaya laakiin adigu hadal buu yiri adigu hadal oo inaadan taad ku hadashaa waan kugu raacsanay inaadan hadal ayuu igu yiri ma sha Allah waan raacay waan qaatay in isaga aan lagala dambaynaynin hadduu siyaad barra amaano laakiin anigu amaani maayo wuxuu qabtay baan sameynay ayaa sheegaya ilaahay waxa abuurtayna intaan noolahayna ilaa aan taalo ku hubsado ama muusiyam ku hubsado inta aan noolahay hadduu ilaahay nafta ii daayo ma deynayo ilaa abaalgudkiisii wixii loogu abaalguday xumaanta iyo beenta ahayd ilaa aan ka daba tago kama hadhayo waayo maafiyadii waxaa ummadda u sheegtay halkaana dhigtay ayaa maanta ammaaniga doonaysaba Somaliland waxaad ogtay ku samaysay dalka ayaa ammaaniga doonaysa baleeg qori bay soo qaateen SNM markaan hay SNM iyo SSDF qabiil bayn u baxnay qabiil ayaan u baxnay waanu doonaynay ugu duulo qabiil markaad tiraahdo intaad qori soo qaadato dawlad u soo duusho adigoo ooleeg waliba qabiil ku dagaalamaya war maxaad ka filaysaa ummadii Soomaaliyeed iyo xukuumadii ka jirtay maxaad doonayseen ee aad ka filayseen eedwan ilaa maalintii ay declare gareynay dagaal baan declare gareeyay anakoo waliba qabiila ayaynu nidhi waynu soognahay jabhadaheeni aynagu labadeenuba qolaba qabiila ayaynu dagaal ku soo qaadnay maxaa ka filayseen min yira hooy walaal qabiilkaygii waan iska dhiibnay walaal waan ka baqanay hooy walaal ba doonayseen nin raga maxaa lagu yaqaanaa haddaba hal dagaalamo ninkii haddaba qaatay qoriga ee la dagaalamay dawladdii riday ayaa 28 sanadood miyaan maanta ka qaadan karaa inuu 24 saac tiifiyadii miidiyada intii soo taago ilaa kuwa xukuma rag iyo dumarba ay yiraahdeen waa nala dilay walaalayaal siyaad barra la dilay walaal siyaad barra ayaa waxa nagu sameeyay war miyaan dhageysan karayaa miyaan dhageysan kartaan bila aadanimada miyaan war waxaan ka baxsanayn waa dawladdii dhanayda aburburiseen
ee aad qoriga u soo qaadatay nin qori soo qaatay oo markii la iska celiyey ama maxay haytay qorigii uu dhintay yidhi waa lay dilay adduunyada xaggee lagu arkay qori soo qaatoo dagaal u soo diyaar garoobay declare gareeyey oo ciidankiisii soo abaabushay oo jabhadiisii soo abaabushay oo dagaal ku soo qaaday xeryihii iyo dawladdii dagaal ku soo qaaday oo haddana leh waayo lay dilay anigu inaan wax dilaabay ahayd anigu waxbaan dilayey laakiin aniga way lay dilay siyaad bare ii dilay war bal caqliga caynkan yidhi ee weli 28 sannadood weli sidan leh bal idinku ka sheekeeya ma inaga dhakhtarra geynaynay dadka iskuulla u dhigaynay qorigeenu sideenay miyayna qoryaha iyo ciidanka iyo dawladda ku soo qaadin inaynu ka ridno oo dawladdaa qallibno oo aanay dhicin inaad dawladdii welibaad kaga xoog roonaatay wax kastoo isticmaalo gaal iyo cadowba u soo isticmaalo cadowgeennii soomaali oo dhan cadowgiisa u soo isticmaalo mar hidday war inaad soomaha khaladkaagii sheegtay waxaad samayso oo aad saxdo wixii aad khaladkaad ku tilmaamaysay isaga ee aad ku eedaynaysay soo inaad saxdo may ahayn diin la'aan baad ku eedaynaysay maanta maxaad keentay waxaan ku dambaysiinayaa kursiyiishka Soomaaliya waxay dhahdeen shuuci buu nagu dhaco diin la'aan buu nagu dhaqayo wadaaduu dilayo waxay kan buu sameeyey oo sharci baa kumunisan lagu xukumayay maanta Soomaaliland sharciga lagu xukumaa waa Indian Penalty Code 17 qodob maxkamadaha tag war madiin baad ku xukuntaa beentaa dadka u sheegteen wallaahi baana sii shaqaynay waan iga dhaartay Indian Penalty Code waxa weeye markuu Hindiya yimi Ingiriisku wuxuu yiri qaad dabka caabudaya looda caabudaya buu yimi kun nooca oo caabudaya cadceedaha caabudaya buu yimi wuxuu waxaan diinba ku shaqalayn baa ku xukumaya qaar muslimna qaar kristana qaar buudiisa qaar maxay tahay siinga ah wuxuu hadaba dhageysta mid idin dhaxaysan diinba shaqo ku lahayn baa idinku xukumaya diinba shaqadeeda ahayn maxaa la yiraahdaa Indian Penalty Code Somaliland bay ku jirtaa 17 qodob 9 qodob waa كسرك عبد الرشيد الصومالي وي كاد مانت الصومالي لا نكون دقنتها محكمته هنا يالا ورما مسلم با يالا عالم با لا اله الا الله كقرت لا اله الا الله محمد رسول الله شرعي قال لو حكميانا waa kii bilaadiintaha ilaahay baa idin baanash gareynaya ada ilaahay baan idinku socotaa ma ilaahay baa khiyaameyn kartaan ilaahay ma khiyaameyn kartaan kunistiyishka sharciga calanka lagu xukumayaana waa kii bilaadiintaha weeye iyo kii Mareykanka oo qaadateen systemka Mareykanka iyo Ingiriiska iyo aynu isku darro baarlamaanka Mareykanka qaadana sinitanas aynu ka qaadana ka Ingiriis systemka Mareykanka ka qaadan ilaahay sharcigiisa ka soo horjeeda ayaa systemka dhan uu ku fadhidaan mayda oran mid muslim sharcigii constitutionka maxkamadaha idin yaalana dib ugu noqda maxkamad baa la idinku xukumaa sharciga idin yaala islaam baa la idinku xukumaa waka ilaahay ma khiyaameyn kartaan dadkana ma khiyaameyn kartaan maanta wixii ka damay war dib dambe been noogu sheegi maysaan dib dambe been noogu sheegi maysaan ilaahay baa beenta caayay dagaal baanaanu ka xignaa beenta mid afka abaanu ka xignaa oo runta wallaahi yadaana ka adag inaanay dibna u shaqaynayn nin kasta oo dhalinyarana waxa kula talinaya war hadla oo ilaahay iyo diinta sharciga ilaahay iyo runta u hiiliya beenta munaafiqa iyo shaydaanka ku raaxaysta dadka muslimka way necab yihiin beenta way necab yihiin way ka gubtaan beenta iyo beenaalayaasha munaafiqiinta way ka gubtaan hadla come out hadla dadkow hadla runta ka hadla iska qabta waxa idin haystaa aad baan idin salaamaya wixii su'aalaha leega soo weydiina waan idin ka soo jawaabi doonaa laakiin waxaan jecelahay inaan waxtarkiisa iyo bari inta ku soo gabagabeeyo iyo ka hadalkiisa sababiina waan idin sheegay inaan uga hadlo waan idin sheegay waxaan ku gabagabeynayaa waxaan ku dadaalayaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadaha Soomaaliyeed aan ka codsado in ninka loo sameeyo xasuus loo sameeyo ama taalaha noqoto waxay doontaa noqoto in xasuus loo sameeyo tiifiyadana naloo fasaxo kuwa qaranka naloo fasaxo iyo kuwa tiifiyadii kale rag baa laaluusha qaar baan diiday inaan si ka sii deeno waxa xanaaqaya hebel baa xanaaqaya shirkadaha laaluusha in laga hadlo waxa runta ma hadli karaan waa ilaa tiifiyadii private ka haba la galay waa ay tuugti gashay iyo musuqmaasuqi galay laakiin waxa la leenahay tiifiyada qaranka hana loo fasaxaynaanu ka hadalno oo fikradeeda ka sii deeno runta ka sii deeno aad baan idin salaamaya dhammaantiinba waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay igu saboodaan in ninka taalo loo dhiso ti Axmed Gurey oo kala loo dhiso iyo sayidka oo kala loo dhiso aad baan idin salaamaya